بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay daafaha caalamka ka joogto. Waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh. Waxaan doorbiday inaan bulshada Soomaaliyeed la wadaago fariin halkan aan ugu gudbinayo madaxda Soomaaliyeed, khaasatan madaxda labada maamul goboleed ee Puntland iyo Jubbaland. horta Soomaali waxay dani ugu jirtaa midnimo iyo isku tanaasul. awalan waxa soo dhaweynaya go'aamadii ka soo baxay shirkii Dhuusamareeb 3 ayaan aad u soo dhaweynaya kuna hambalyeynaya madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaan sidoo kale hambalyeynaya nabadoon madaxweyne Qoorqoor oo juhdi fara badan geliyay sidii ay Soomaali halka isugu iman lahayd ee isku afkaran lahayd. Soomaalidu waxay tiraahdaa mala rag waa madaxyaaf guud. kulli waxa qurux badan wax waa la kala taban karaa, wax waa la dooni karaa, laakiin inay shakhsiyan la isku muuqdo oo la isku tanaasuli waayo loo tanaasuli waayo bulshada Soomaaliyeed ee daafaha caalamka ku dhibaataysan, bulshada Soomaaliyeed ku dhibaataysan dalka gudihiisa. kulli shirka oo Dhuusamareeb 3 ay ka wareeyeen Dhuusamareeb 1 Dhuusamareeb 2 way u dhanaayeen madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya. laakiin Dhuusamareeb 3 waxa ka maqnaa labada madaxweyne Deni iyo Axmed Madoobe. labadaba aad baan u salaamayaa madaxweyne Deni anagu ismaanaan arag wali, laakiin Axmed aad baan soo aragnay. waxaan Axmed mar labaad xasuusinaya astaantii nabadda calankii nabadda ku guddoonsiiyay ee adeega garooday maalintii 2 sano ka hor ayaan ku xasuusinaya. waxaan leeyahay dadku ama maamulku ama madaxdu way kala aragti duwanaatay. waxaan ka xumahay horta baaqashada shirkaad ka baaqateen idinkoo kuwa horeba soo waday. madasha inaad ka maqnaataan ma ahayn markaa waaxid inaad madasha tagtaan oo mabdi'iina waxaad diidantiin ka dhiibataan ayaan aad iyo aad u jeclaa. hadeerna waxaan idiin soo jeedinayaa in madal loo dheeyahay oo ama Muqdisho ha ahaato inaad isdaba qabataysaan oo Soomaali u tanaasulsheen oo wixii aad diidaseen ama dawladda federaalka Soomaaliya ku dhaliilasaan aad horteeda tiyo la dheeyahay ku dhaliishaan. laakiin iyada tagi maayadaas kulli Soomaali way ka daadegi weyday. waxaan markaa idin ku codsanayaa dhammaan ummadda madaxda Soomaaliyeed ku codsanayaa inay isku tanaasulka la ogaado, midnimada Soomaaliya la ogaado. taasaan soo jeedinayaa anigoo magacaygu yahay Suldaan Cabdigaahir Maxamed Jaamac oo Soomaaliyeed ah. midkaasaan soo jeedinayaa. waxaan u soo jeedinayaa madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya astaantii qaranka tahay tanaasulka faraha badan ee laga baahan yahay. taasaan ku dhaafaya. waxa kale oo aan u soo jeedinayaa baaq maamulka Somaliland oo bulshada gobolka Awdal oo aan ka soo jeedo ku haya caburin doorasho qasaba in lagu qabto oo dadkii la caburiyo
waxaween goobo fara badan baa xaniban saami qaybsi baa jira arrintaasina dib hal looga joogsadaan leeyahay oo waxay ummaddu ama bulshadu waxay rabto loo yeelo intaasaan kusoo gabagabaynayaa aad iyo aad baan diin salaamayaa عفوا هدي هذا الكي قاعد وعرفتان كلي وح مثلا درسة يا جماعة وعودي صوماليات كلي تلدي آدي أدبان دي سلامية وبالله التوفيق.